السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتي سو دوادا أصحابتي waxay noo socday casharadeenii taxanaha aynu ku baranaynay barashada xisaabta dugsiga sare khaasatan jabtarkiisa trigonometry maanta waxaanu isla fiirin doonaa mid kale oo kamid ah ciwaanada ugu muhiimsan trigonometryga kaas oo hore waxaan uga soo hadalnay asxaabay halbeegyada lagu cabiro xaglaha oo waxaynu soo dhiganay aynu ka soo hadalnay degree baynu soo sheegnay oo waxna degree-gu waxa uu kamid yahay waxyaalaha lagu cabiro xaglaha sidoo kale minutes baynu ka soo hadalnay oo aynu rahnay sidoo kale waa halbeeg labaad oo lagu cabirayo xagasha yani meesha aad ka oran lahayd tusaale ahaan oo kale aad oran lahayd 5 degree waxa kale oo oran 5 minutes oo kale ama kalmad minute calaamada saaraya sidoo kale waxaynu ka soo hadalnay qaabka labadooda la isku bedelo oo waxa soo sheegnay 1 degree hal degree inuu ila dhigmo 60 minutes inuu ila dhigmo ayaan soo sheegnay qaabka la isku bedelo example aynu ka soo sheegnay hadaba maanta waxaan isla fiirin doonaa sidoo kale mid saddexaad halbeeg saddexaad oo lagu cabiro xaglaha kaas oo la yiraahdo radian asxaabada radian kuwa maxay waa isana measurement of angles waa cabir kale ee lagu cabirayo xaglaha yani waa cabir kale ee lagu cabirayo xaglaha hadaba hal lagu cabiray waxa rabaa maanta inaynu isla fiirino qaabkii la isugu bedbedelayay hore waxaanu soo dhiganay hal degree waxa uu ila dhigmaa 60 minutes uu ila dhigmaa farmaantan waxa fiirinaynaa relationship ka dhaxeeya radian iyo degree-ga relation ka dhaxeeya aan rabnaa inaan isla fiirino hadaba intaan fiirin intaan isla fiirin marka koowaad circle baynu sawiranaynaa yani waxa rabaa inaan soo proof gareyno meesha ay ka timaaday iyo meesha loo socdo inaynu isla ogaano circle-ka asxaabay markii aynu sawirano waxaynu garan karnaa circle waxa uu leeyahay astaamo uu leeyahay properties uu leeyahay waxa kamid ah circle-ku waxa uu wareegaa 360 degree buu wareegaya yani hadda halka hadaan qaado oo wareego 360 yani 360 degree hadii aan wareego waxa ii sawirmanaya oo ii sawirmanaya wax la yiraahdo waa maxay waa circle weeyaan sidoo kale waxaan garanaynaa circle-ku waxa uu leeyahay circumference-ga maxaa laga wadaa tusaale ahaan oo kale halkaasi line baa inoo sawiran يعني rectangle baa inoo sawiran rectangle-keena waxa la circumference waxa la yiraahdaa waa maxay shayga kan waxa la yiraahdaa oogadiisa yani oogadiisa waa maxay waa external length-kiisa baa la yiraahdaa hadaba sidoo kale waxaynu naqaanaa asxaabay in circumference-ga circle-ku lagu helo si waxay la macno tahay 2 by r inay la macno tahay halka waxa ila dhigantaa 2 by r in ay la dhiganto wax la yiraahdo ayaan halkaas ka soo saari karaa hadaba circumference-gaygu maadaama 300 ikaadi marka waxa rabaa marka intaan halkaas u gudbin in circle-ka aan sawirnay aan radius u sameeyo radian-kaasi waxa weeyaan waxa uu saa u wareegaya hal yani waa maxay hal unit 1 unit يعني waa maxay radius 1 unit ah waan sawirtay sidoo kale waxaan sawirtay radius kale oo 1 unit ah inta soo hareysa cashar video-ga labaad baan ku qaadan doonaa waxa la yiraahdaa arc length baa la yiraahdaa yani waa maxay length-ka circumference-gu waa maxay waa gabi ahaanba waa circle-ka weeyaan arc length-kuna waxa la yiraahdaa waynu garanaynaa oo geometry-ga ayaan ku soo barnay oo waxa lagu helaa yani waxa lagu helaa theta oo loo qaybiyay 360 oo lagu dhuftay 2 by r baa lagu helaya hadaba hadii halkaas wax la yiraahdo aan isticmaalo xagashu maadaama wuxuu circle uu yahay fiiri maadaama uu circle uu yahay aad ku bedelato yani waxa rabaa circumference-ga rabaa inaan ku soo saaro oo si waxay la macno tahay 2 by r meesha ay ka timaaday baan rabaa inaan ku soo saaro hadaba maadaama wuxuu circle uu yahay oo 360 uu wareegayo waxaan ku bedelanayaa xagasha aan haysto 360 oo waxay noqonaysaa 360 oo loo qaybiyay 360 degree oo lagu dhuftay 2 by r kadibna waxa leeyahay halka 1 baa ka soo baxaya 2 by r baa iga soo baxaysa si la adriga circumference-gu waxa uu la mid noqonayaa 2 by r halkaas ka timaaday asxaabi circumference-ga uu circle uu leeyahay halkaasi ayay ka timaaday hadaba waxaan rabaa 2 by r meeshaas waa dhigan karaa 360 baa dhigan karaa labadaba waa isku mid kadibna halka waxaan dhiganayaa 360 waxa ay la mid tahay 2 by r هذا برادي أسوان هايستا أو 1 بان هايستا 1 يونت بماشى وقاتي
waxaan rabaa inaan ku soo proof gareeyo qaacidada ka dhaxaysa ama relation ka dhaxaysa wax weeyaan radiuska iyo radianka iyo degree-ga ka dhaxaysa rabaa inaan soo proof gareeyo marka hadda waxaan ku soo proof gareeyo waa maxay c waxay la macnaa 2/r meesha ka timaaday waxaan ku yiri aglengaska waxa lagu helaa theta oo loo qabiyo 360 oo loo dhuftay 2/r theta maadaama uu circle uu yahay 360 oo loo qabiyo 361 baa ka soo baxaya 2/r c waxay la macnaa 2/r intaas waxa weeyaan waa circumference-ga uu leeyahay circle-ku qaacidadiisa meesha ay ka timaaday haddaba 360 degree maadaama ay wareegayso circumference-gana wuxuu ii leeyahay 360 ama 2/r labadu waa isku mid waa ku proof gareeyay kadibna waxa la yiraahdo radius-kayga waan haystaa oo 1 waxa leeyahay 360 waxa ay la macno tahay 2 oo lagu dhuftay 1 360 degree waxa ay la macno tahay 2 bay la macno tahay si la adrigeed bay waxa ay la macno tahay 180 bay waxa ay la macno tahay 1 bay haddaba baydu inta aad maqasho waxa ay ku cabirantahay halbeeg ah rad bay ku cabirantahay marka waxa leeyahay bay waxa hadii ay ila dhiganto 100 degree fiiri bay hadii ay ila dhiganto 100 degree hadda waxaan rabaa inaan halka ka soo saaro war hal degree imisa ayay ila dhigmaysaa hal degree he imisa ayay ila dhigmaysaa yani hal degree imisa ayay u dhigantaa cross multiplication hadii aad isticmaasho waa x oo lagu dhuftay 100 degree waxa ay la macno tahay bay dhinaca kasta hadaan u qaybiyo x waxa ay la macno tahay bay oo loo qaybiyay 100 degree haddaba halka waxa iga soo baxaya hal degree in ay ila dhiganto by over 180 degree taana waxa weeyaan waa qaacidada aan ku dabaqi doono wax weeyaan baashena hadda waxa weeyaan qaacidada aan isticmaali doono by waxay hal degree soo dhigmaa by oo loo qaybiyay 180 bay ila dhigantaa يعني قاعدة استعمال دون هذا واحد نقول أصحابي تاسين نقول دون وصوته هذا مركي إنه حلنا إنه وهوري واحد نقص واحد إنه واحد هذا استعمال جرني 10 كان كم كوري ديكري أي مركان حسابين إنه منت كواحد لين هل ديكري وحاول لنا نجري 60 منت ما أنت نوحان برتي هل ديكري إنه إلى ديكمو باي وليستيت لبضع سوى حويان وحريرك كده حين كرا أما relation كإسكو حرير كرا degree-gaaga iyo radian-kaaga haddaba asxaabay waxaan kaloo rabaa marka inaad la soo ogaano hadhow hadiina la isiyo radian oo radian haddaan rabo inaan helo waxaan isticmaalayaa bay oo loo qaybiyay 180 oo lagu dhuftay degree-ga ah haysato tusaale ahaan oo kale 30 degree baan ku siiyay fiiri tusaale 30 degree markii aan ku siiyay waxaan ku yiri 30 degree gaasi radian u bedel waxaad isticmaalaysaa by oo loo qaybiyay 180 oo lagu dhuftay degree-ga aan haysto fiiri katibna waa maxay 30 u qaybi waa 6 waxa ay la dhigantaa baa leeyahay by oo loo qaybiyay 6 يعني waa maxay hadii inta aad degree lagu siiyo lagu dhaho raad bedel degree-ga aad haysato waxa ku dhufataa by oo loo qaybiyay 180 baa u bedelaysa taas waxa filayaa waa clear sidoo kale hadii inta lagu siiyo raad oo lagu dhaho degree kan waxa soo qaadanaysa tusaale ahaan raad baan ku siiyay oo tan aan ku siiyayba by over 6 baan ku siiyay maxaan ku dhufanayaa radian-kayga maxaan ku dhufanayaa 180 oo loo qaybiyay by labada by waa isla baxayaan 180 oo loo qaybiyay 6 bay noqonaysaa 30 degree وانا ماشي aan ka soo bilownay يعني waa maxay ay nooc qaab kasto oo adiga lagu siiyo aad u xalliso jawaabtaadu way iskeenaysaa hadii intu macalinku degree raad hadii lagu diro يعني waa maxay hada fiiri qaacido wax ku leedahay radian waxa lagu helaa by over 180 oo lagu dhuftay degree-gaaga degree-gaagana maxaa ku helaysaa 180 oo loo qaybiyay by oo lagu dhuftay radian baa lagu helayaa
meesha ay ka timaadee waxa la yiraahdo aan ku proof gareyno aan isla fiirino marka laakiin qaacidada hadaa rabto sidaa u xifdi laakiin haddii aad xifto waxa laga yaabaa muddo kadib inay maskaxdaada ay ka suudho laakiin meesha ay ka timaaday aynu isla fiirino kadib dhowr example aynu ka shaqeyno casharkeena barta aynu ku soo gabagabayno fiiri haddana waxaan ku yiraahday fiiri circumference-ga waxa lagu helaa baan ku yiraahday asalkiisu 2 by r baa lagu helaa circumference-gu maadaama uu yahay 3600 waa soo proof gareynay waxay la macno tahay 2 oo lagu dhuftay by radius-ka 1 buu ahaa oo lagu dhuftay 1 360 waxa ay la macno tahay 2 by bay la macno tahay by waxa ay la macno tahay baan ku yiraahday 180 degree bay la macno tahay haddaba halkaasi marka ay la macno tahay waxaan rabaa bar in aan soo calculate gareeyo hal degree miso ila dhigmaya halka hal degree baan dhiganaya halkaan x baan dhiganaya cross multiplication baan isticmaalaya 180 oo lagu dhuftay x waxa ay la macno tahay by maxay la macno tahay by kadibna waa maxay dhinac kasta waxaan u qaybinayaa x waxa ay la macno tahay by oo loo qaybiyay 180 yani marka waxa leeyahay hal degree waxa ay ila dhigantaa by oo loo qaybiyay 180 waana tan koowaad weeyaan islaayna marka by oo loo qaybiyay 180 tan kale aan isticmaalno oo halka marka aan mareyna aan lahayn by waxa ay la dhigantaa 180 degree haddii maxaan xisaabinayay haddii waxaan xisaabinayaa hal degree misu ila dhigmaa maanta waxaan xisaabinayaa hal rad imise degree buu ila dhigmaaya cross multiplication hadaan isticmaalo waa 180 oo lagu dhuftay maya ku lagu 180 waxa ay la macno tahay by oo loo qaybiyay x dhinac kasta by u qaybi 180 oo loo qaybiyay by waxa ay la macno tahay x marka waxa leeyahay hal rad yani waa maxay hal rad afkuntan ma jiro rad weeyaan hal rad waxa ay la dhigantaa baan leeyahay 180 oo loo qaybiyay by soo bajeeto 180 loo qaybiyay by equations saddexaad baa inoo qoran oo ah hal rad waxa ay la dhigantaa 57.3 degree waa labada adoo isu qaybi labada isu qaybi waxa kaaga soo baxaya hal rad waxa ay la dhigantaa baan leeyahay 57.3 degree labada isu qaybi haddaba koormaan isticmaalayaa weeyaan asxaabi tan waxa isticmaalaysaa haddii bahasha lagu siiyo ay tahay wax weeyaan by haddii ku jiro waa isticmaalaysaa tanna haddii by lagu siiyo waa isticmaalaysaa tanna tira caadi haddii lagu siiyo tusaale ahaan oo kale haddii lagu dhaho laba degree oo kale imise u dhigantaa maanta laba degree inaan ku dhufto maadaama aan degree haysto inaan ku dhufto waxa weeyaan by oo loo qaybiyay 180 aan dhaho 2 by waxay la macno tahay 180 aan dhaho by oo loo qaybiyay 90 waxa iga qurux badan inaan dhaho hal raadada inta ay la macno tahay laba degree inta ay la noqonaysaa marka haddaba asxaab intaasi waxaynu isla garanay qaacidooyinka la isticmaali doono waa isla garanay saddexda qaacido baa ku dabaqi doontaa qaacido koowaad waxay ku leedahay radian haddii lagu diro degree-ga ay ku dhufo by oo loo qaybiyay 180 haddii aad fahmi weydo ama xifdigaaga ay ka baxdona sidaa ula soo bax adigoo kasoo dhiraandhirinaya circumference waxay la macno tahay 2 by r circumference-ga waa 360 2 by radius-kaaguna waa 1 kadibna waxa la yiraahdaa by waxay la macno tahay 180 dhinac kasta u qaybi way ku soo baxaysaa marka haddaba aan isla fiirino marka example aan isla fiirino marka annagoo xalnayna tusaale waxaana la siiyay 240 fiiri 240 rad baa la siiyay 240 rad baa waxa la yiri degree u bedel qaacidadan fiirsanaya fiiri waxa meel adag ma ka raadinayaba qaacidadan fiirsanaya rad meeday waa kan maxaa lagu helaa 180 loo qaybiyay by oo loogu dhuftay 240 kadib intaas hadaa saa soo xaliso waa ku soo baxaysaa jawaabtu yani leen degree ma raadinaya 180 loo qaybiyay by oo lagu dhuftay 240 kadibna isu qayso waxa dhacdaa 180 oo loo qaybiyay inta wax kaaga soo baxaya 57 baa kaaga soo baxaysa ama wax kale oo isticmaali karnaa maadaama aniga wax bay aan leeysiin tan waa isticmaali karaa waxa leeyahay 1 rad hal rad waxa uu ila dhigmaa 57.3 uu ila dhigmaa biri haddana waxaan leeyahay 240 rad imisa ayuu ila dhigmayaa
labadooda oo la isku dhuftay way 57.3 times 240 waxa weeyaan 13,752 intaasoo degree bay ila dhigantaa haddii aad tan isticmaashona waa kadalik natiija ku soo baxaysa oo maxay noqonaysaa 180 times 240 يعني waa maxay inta labadaasna markaan isku dhufto 43200 oo loo qaybiyo by 3.14 oo qaybi intaas 3.14 oo qaybi يعني waa ku soo baxaysaa 13,757 waa ku soo baxaysa sababtoo ah boontiga 3.14 way ka badan tahay intaas 3.14 something sii soconaysa marka hadaba adiga hadii lagu siiyo wixii doon hal lagu siiyo ama qaacidada isticmaal jawaabtu waa iskeenaysaa ama qaacidada isticmaal jawaabtu waa iskeenaysaa sidoo kale hadii lambar lagu siiyo caadi ah oo aan wax bay aan la socon taa isticmaal waraad waxay la macno tahay 57.3 taasaan isticmaalaynaa bar iyadoo bay la socoto baan fiirno bay iyadoo la socoto aan isla fiirino baydu markii ay la socoto waxa weeyaan way ka fududahay tusaale waxaan la weydiiyay by over 3 rad waxa la yiri by over 3 rad intaas waxa weeyaan waxa u bedeshaa degree meedi degree maxaa lagu helaa 180 loo qaybiyay by oo lagu dhuftay radianka haysto oo ah by over 3 laba by cancel 180 oo loo qaybiyay 3 waxay la macno tahay 60 degree very maanta oo kale inaad tan isticmaala aan dhahaa 1 rad waxay la macno tahay 57.3 degree by over 3 waxa iga fudud maadaama by ay wadato inaan isticmaalo tan si labada bay ay isu kasraan laakiin haddii aad bay ka weydo qaacidada isticmaal sababtoo ah markasta khasab ma aha inaad isticmaasho 180 loo qaybiyo by mararka qaar kood uma baahanayso waxa mararka qaar ku baahan tahay inaad isticmaasho 57.3 baad u baahan tahay mararka qaar in wax la yiraahdo aad isticmaasho haddaba inta waxaan uga baxayaa haddii aniga la isiiyo rad bar degree haddii la isiiyo la yiraahdo fiiri tusaale waxa la isiiyaba 30 degree يعني waxa la isiiyo tusaale 30 degree baa wax la yiraahdo rad u bedel rad kiimeeday waa kaas maxaa lagu helaa bay oo loo qaybo 180 degree sidoo kale maxaa lagu helaa tan waa isticmaali karaa maadaama number ay tahay tan waan isticmaali karaa tan waan isticmaali karaa bal labadaba aan fiirno natiijada soo baxdan wayna soo baxaysaa radian marka maxaa lagu helaa by oo loo qaybiyay 180 oo lagu dhuftay 30 waxay la macno tahay 30 by oo loo qaybiyay 180 waa isla baxayaan labada marka la isku qaybiyo 3 u qayb waa 1 3 u qayb waa 6 by over 6 hadaa marka intaas u qaybiso ara 3.14 loo qaybiyay 6 waxa ku soo baxaysa 0.523 waa ku soo baxaysa waa koorma taa markaan isticmaalo tan aan isticmaalo aan dhaho 1 rad waxa ay la dhigantaa balinka inay bedelano 57.3 degree kadibna aan dhaho 30 degree imisa ay la dhigantaa isku dhufo waxma waa x oo lagu dhuftay 57.3 degree waxay la macnada 30 hal ku dhufo waa 30 dhinac kasta waxaan u qaybinayaa 57.3 dhinacana waxaan u qaybinayaa 57.3 x waxay la macno tahay 30 oo loo qaybiyay 57.3 0.523 waliba 4 baa soo baxaysa inay wax la yiraahdaa errorska yar ee u dhaxeeya farqaas wuxuu ka imanayaa sababtoo ah by 3.14 exactly value-geeda ma aha yani waa maxay markii two decimal place iyo loo soo goobo weeyaan marka waa maxay labadaba qaabka aad u isticmaasho way iskeenaysaa laakiin haddii bay ay kula jidho oo baashaadu bay ay la socoto sida example kan oo kale khasab ma aha tan hoose inaad isticmaasho tan sare waa ku ekaan kartaa maadaama iyadu ay ku fududeynayso teeda kalena su'aashu khasab ma aha in macallinku uu cadeeyo inay degree tahay in raad tahay markastana khasab ma aha xagal kasta aad aragto inaad u moodo in ay tahay wax weeyaan mid degree ah tusaale waxa la weydiiyay by aan dhaho
oo aan dhaho by oo loo qaybiyay 360 oo kale aan dhaho waxa la yiri waxa u bedeshaa radian baa la yiri u bedel radianku muxuu ku leeyahay by ma afwan saamahan waa 360 oo loo qaybiyay by weeyaan sida ma hadaba maxaa lagu helaa radianka waxa lagu helaa by oo loo qaybiyay 180 oo lagu dhuftay 300 digrigan haysto waa imisa 360 oo loo qaybiyay by laba by waa isla baxayaan laba eber waa isla baxayaan 2 baa ku soo haraysa intaana waxa weeyaan laba raad baa halka iiga soo baxaysa hadaba asxaabi wax la yiraahdo hadii iyadana marka qaabkan lagu weydiiyo qaabkaas waxa xalinaysa hadii baashaadu ay la socoto wax la yiraahdo ay la socoto by iyo waxaas saasaad isticmaalaysa hadaba hadda waxa isla fiirin doonaa khasamiya in markasta su'aashu macalinku uu ku siiyo tusaale ahaan oo kale aan isla fiirino tan tusaale ahaan oo kale waxa lagu weydiiyay oo kale 360 minute fiiri waxa la yiri 360 minute waxa u bedeshaa raad u bedel fiiri 360 minute raad u bedel markii la yidhaho anigu ma garanayo xiriir relation ka dhaxeeya minute iyo raad xiriir ka dhaxeeya ma jiro laakiin waxa soo bartay minute iyo degree sidoo kale hadda waxa bartay raad iyo degree marka waxaan ku khasbanahay 360 kaga minute inaan u soo bedelo kow waa inaan marka waa degree aada degree-gana waa inaan uga sii bedelaa raad waa inaan uga sii bedelaa marka qaar su'aasha saas lagu weydiin karaa 360 khaasatan examination-ka oo kale waxa lagu waranayaa 360 minute raad u bedel ardaygu wuxuu automatically wuxuu oranayaa maskaxdiisa wuxuu kusoo dhacaysaba xiriirka ka dhaxeeya relation ka dhaxeynaya minute-ka raad kama uu jiro su'aashi bartaas wax la yiraahdo uga tanaasulaya marka maxaan sameeynaa laakiin anagu waxaan aqaanaa xiriir ka dhaxeeya minute iyo degree sidoo kale waxaan aqaanaa degree to raad marka waa ina position-ka waa ina maraa marka hoday maxaan soo bartay waxaan yiri war hal degree waxa uu inoo dhigmaa 60 minutes buu inoo dhigmaa 360 minutes imiso ila dhigmaa cross multiplication 60x waxay la macno tahay 360 x na waxay la macno tahay 360 u qayb waa 6 waxa weeyaan waa 6 weeyaan ma 360 360 oo loo qaybiyay 60 waa 6 weeyaan marka halkan waxaan la soo baxay 6 degree baan la soo baxay 6 degree waa inaan bedelaa marka oo maxaan leeyahay kanaan isticmaalayaa kanaaba ii fududba waxaan leeyahay hal raad hadduu ila dhigmaayay 57.3 degree 6 degree imise raad buu ila dhigmaayaa kadibna waxa weeyaan aan iska tirtiro kadibna aan xalino hadba jawaabtu waxay inoo baxdo aan aragno marka kadibna waxaan leeyahay ku dhufo waxaan leeyahay 57.3 degree oo lagu dhuftay x waxa ay la dhigantaa 6 dhinaca kastana u qaybiyo 57.3 x waxay la macno tahay 6 oo loo qaybiyo 57.3 waxa ay la dhigantaa 0.105 3 decimal place markaas soo koobo marka waxaan leeyahay 360 minutes waxay u dhigantaa 0.105 raad buu dhigantaa hadaba asxaabi waxa la yiraahdo imtixaanka saa waa lagu weydiin karaa wax la yaaba intii lagu siiyo raad lagu dhaho minute u bedel marka maxaa sameynaysaa raadkaygii waxa u bedelayaa degree-gan waxa uu sii bedelayaa minute baan u sii bedelayaa marka laba aan relation la dhaxayn hadii lagu siiyo waxa la sameeyaa oo la raadsadaa labadii aad taqaanay oo relation-ka ka dhaxaysay sidoo kale waxaan rabaa inaan baraarujiyo khasamiya markasta macalinku inuu ku siiyo ama uu ku dhaho khaasatan maadaama trigonometry aan ku jirno tusaale saddex xagalkaas macalinku ii sawiray tusaale saddex xagalkaas baa la ii sawiray markuu macalinku saddex xagalka ii sawiray halka wuxuu siiyay tusaaleba 36 oo loo qaybiyo by halkaan x buu igu qoray halkaan tusaale ahaan oo kale
5 centimeter buu igu qoray markaas wuxuu yiri waxa soo xisaabisaa x qiimaha x waxaan is weydiinayaa war tiriya 36 oo loo qeybiyo by calaamada digriga ma wadataa mise ma wadato haddii calaamada aad ka weydo waxa aad haysato ogsoono ma ahan digri waa raad markaan ka shaqeynayo haddii inta dhahdo sin 36 oo loo qeybiyay by waxay la macno tahay x oo loo qeybiyay 5 cm aad ku qariso waa khalad weeyaan sababtoo ah ma aad haysato digri raad baa haysataa maxaan ku garanayaa calaamadii digrida iyadoo haddii calaamada digriga shayga aan la saarin shaygaas digri ma ahanba 5 hadaan isku qoro waan qoro tusaalahaan oo kale teeta waxay la macno tahay 5 hadaan isku qoro boqolkiiba boqol waxaan aaminsanahay shantaasi inaysan ahayn digri waa raad maxaan ku khasbanahay marka inaan soo bedelo digri baan ku khasbanahay sida example kan oo kale marka kan oo kale imtixaanka haddii la diro sababtoo ah imtixaanku mar kasta waxa la keenaa maxay su'aalo fudud su'aalo dhexe iyo su'aalo wax leeyahay u baahan trick kaliya dadkii waxa la yiraahdaa si deeply waxay ula socday al rabo inay darajo ku qaataan marka maxaa sameynaysaa tan oo kale hadaad aragto waana ku sheegay waxaan ku yiri calaamada hadii aad lambarka ka weydo lambarkaasi digri ma hay waara sababtoo kale waxba ka shaqeysay macalinka wuxuu soo saaray 60 buu soo saaray 60 degree ma waa 60 raad weeyaan marka tan oo kale maxaan ku khasbanahay marka waad waxaan ku khasbanahay inaan bedelo oo aan dhaho digri hadda roo maxaa lagu heli jiray 180 oo loo qaybiyay by oo lagu dhuftay 36 oo loo qaybiyay by يعني ما دام هذا أنا اسكو قري أصل كذا واحد إن لو قرو باي أو لو قيبي سودني الله يعني دقيق غير كمر كي تواين كرمدا سي أي لبضع سلب بحن هذا لبضع سي هذا سلب حمايانه ويسي زيادة سهنا واسحب عنا ذو خالد معهن أي واحد ربا إن أي سلب بحن بربنا قدسه مركز عايز دوام مريو عندهنا باي أو لو قيبي سدح بقول سودني الله لو باي واي سلب بحن بقول يستيتنا لو قيبي سودني الله وقيبي وصدن وقيبي واللح واشن كدينا باش هذا قدال وصوره قدال باش هذا وصوره 5 degree x علامة degree أنا هي المامن 5 سنتيمتر كاجينا سداو يعني أصحاب واحد رأينا برارجيا هدي علامة degree شيء قال لجوا شيء قاس معهن degree والراد إفن هذه امتحان قالوا جو كانوا ومعنى كوصوه المامو هذه الراد كاجوا وشقي هدي لكن واحد عدينا أوصل كوسين إنسان كله قرال دكري هدوسن كو قرن علامه انا كو صارين باشاسي وا راركا بدل دكري وبدل دكريغا كدب استعمال هذا waxaan filayaa asxaabay inaynu isla fahanay casharkeena maanta waxaanu ku ogaanay aynu ku baranay waxyaalaha soo socda kow radian ku xiyaa radian ku waxay raanay waa halbeeg saddexaad oo loogu talagalay in lagu cabiro xaglaha marka rabto inaad bedeshana saddexda qaacido baad isticmaalaysaa radian hadaa raadinayso waxaad isticmaalaysaa bay oo loo qeeyay 180 digriga haysta ku dhufanaysaa digrigana maxaan ku helaysaa 180 loo qeeyay bay oo lagu dhuftay radianiska hadii bahashaadu aysan wadin wax bay waxa ay wadana kana waa isticmaalaysaa hada waxa filayaa asxaabay inaynu isla garanay asxaabay intaynu kulmi doono fiidiyogiisa xiga waa anagoo isku duuban oo idin leh isma dhaafno fi amaan illah